sanada hijriyada goormay bilaabatay? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran kanaalka Ibn Abubakar. waxaad tihiin dadka uu ku dhisan yahay kanaalka Ibn Abubakar. Maanta waxaan rabaa inaan su'aal idin soo bandhigo su'aal diini ah. Aan weydiin doono dad fara badan. Qofkiiba waxaa la weydiin doonaa insha Allah 2 ilaa 3 su'aal. La socod wanaagsan. haddana waxaan soo qabanay qofkii koowaad. Soo dhawow magacaaga oo saddexan. بسم الله وكدوها هرت برنامجك مجيء عبد الله إسحاق محمد. Okay. Abdullahi yow maanta su'aal diini ayaan rabaa inaan ku weydiiyo. Maxaa والله ديارنا هاي إن شاء الله. Okay. waxaa sheegtaa imise sano ayay asxaabul kahfi godka ku jireen? إن هذا نسكت ديو 600 يسجل سنة. aad iyo aad su'aasha si sax ayaad ugu jawaabtay insha Allah. mid labaad aan ku weydiinaa goormee la waajib yeelay soonka? سنة كيلابات هجرية. very good. mid labaad ayuu ka jawaabay. Okay, mid saddexaad sanada hijriyada goormay bilaabatay? مركو نبي مكسو هجرية مدينة إمارة. ما شاء الله aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. kaasi wuxuu Abdullahi. haddana waxaan soo qabanaynaa qofka xigo. waxaan soo qabanay qofkii labaad magacaaga oo saddexan. عبد الله مرسل فارح. Okay, sidee u aragtaa su'aalahan ku weydiin doono? والله دمعة إنك جاوب دون أملينيا. Okay. waxaa sheegtaa haweeneydii ugu horeysay ee rumaysay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. والله حاسكيس أمير خديجة. waa hubtaa miya? أوه Okay, su'aasha labaad waxaa sheegtaa qofkii ugu horeeyay ee rumeeyay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. رقم عيال rag. أبو بكر الصديق. ما شاء الله. su'aasha labaad ayuu ka jawaabay. midda saddex. Okay, su'aasha saddexaad sheeg tirada xadiidka saxiixul muslim. 3,999. mar labaad. 6,700. fursad ugu dambeysa. والله مكساي. Okay, waa 7,252. ما صنت. Okay, waxaan soo qabanay qofkii saddexaad magacaaga oo saddexan. magacayga aadan cabdullaahi maxamed. Okay, aadan waxaa sheegtaa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam imise sano ayuu ku geeriyooday? wuxuu ku gooriyeeday 63 sano. Okay, eenay waxaa sheegtaa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam imise caruur oo dhalay? meeqa gabar ay ahaayeen imise wiil ay ahaayeen? magacyadoodana kala sheeg. wuxuu dhalay 7 dhalay 4 gabdho waa 3 wiil waay. Okay, magacyadooda. bismillaah khadiija ruqyo ibn kaltuum ruqyo ibn kaltuum zaynab ruqyo ruqyo faadumo aye bes intaas ahaa. mar labaad fursada labaad. ruqyo zaynab ibn kaltuum faadumo xasan intaas xasuus intaas aa. Okay, fursada saddexaad ugu dambeyso ka faa'iideyso. zaynab faadumo ibn kaltuum intaas ay yaqaanaan. Okay, sidee u aragtaa su'aalaha aan ku weydiiyey? walaahi su'aalahan aad iyo aad baa u faraxsanahay maadaama la weydiiyey su'aal diin anaa isku dayay waxa ka jawaabana waa qalday. ما شاء الله. isku dayga wacan magacaaga waa saddexan. لقمان أحمد عمر. su'aalahan ku weydiin doono waa su'aal diini ah. waxaa sheegtaa Qur'aanka Kariimka imise suuradood waa? قرنتين Okay, su'aasha labaad waxaa sheegtaa nabiga ilaa hadda uu nool yahay? نوعيس. Okay, su'aasha saddexaad waxaa sheegtaa ninka nabigu ahaa boqorna uu ahaa? نيوزيلندا. ما شاء الله. aad ayaad u mahadsantahay oo isku dayday su'aalaha saddexda aan ku weydiiyey waana ka jawaabtay. sidee ayaad u aragtaa su'aalaha aan ku weydiiyey? سؤال في عوام. ما شاء الله. aad ayaad u mahadsantihiin saaxiibada qiimaha badan. su'aalaha aan idinku soo talgalay halkaas ay ugu yihiin insha Allah. waxaan rajeynayaa inaad ka bogan doontaan, aad wax badan ka faa'iidin doontaan insha Allah. waana sii badin doonaa doo Ilaahay idmo.